xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa maanta xilkii gudoomiyenimo ee golaha deegaanka ee degmada Boorama kaga qaaday shir aan caadi ahayn oo ay ku qabteen xarunta shirarka ee dawladda hoose ee degmada Boorama. xubnahan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama ee shirka qabtay oo tiradoodu dhammayd 14 xubnood oo ka tirsan 22 xubnood oo ka kooban yahay golaha deegaanka ee degmada Boorama waxay sheegeen in sababta ay shirka u qabteen ay ahayd codsi uga yimid golaha deegaanka ee degmada Boorama hanti dhowrka guud ee qaranka iyo ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee gobolka Awdal inay kaga codsadeen ka golo deegaan ahaan in xisaanada ka qaadaan gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Cabdiraxmaan Shida Bile si sharciga waafaqsan si eedo hanti dhowrka ku eedeeyay oo ah lunsi hanti qaran oo gaadhaysa 380 milyan iyo 100 kun oo shilin Soomaaliland. haddaba xubnaha golaha deegaanka ee shirka qabtay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan isku cunay fadhaan caadi ahayn oo aan lagu soo geliyay warqadda ka socota xadgudubka guud qaranka iyo xeerlaaliyaha guud ee saxariyaha gobolka codsiga ah ee laga codsaday aan qabanno shaqo caadi ahayn kaas oo aan kaga qaadayno xisaanada kaga qaadayno maayirkii hore degmada Boorama Cabdiraxmaan Shida Bile oo lagu soo eedeeyay arrimo musuqmaasuq iyo wax samarin marka goluhu markii hawsha ay u fadhiisteen ay ka baadageen dooda iyo farqeynta ka yeesheen waxay go'aamiyeen in laga qaado xisaanada maadaama lagu soo eedeeyay arrimo musuqmaasuq oo ay ka معاونا كوي هاي قف شعبة أو شعب كم ما في كل حاجة وحيد لم يوصل من قبل هذا الكلام حتى ندين هو هذا الدنيا هي شرفتي قدامك وهي لو قرتين أنا وإذا أنا وخوف هنا تسوينا صوت فهذا يقول كلام مقصود أو أذكر بالسياسة كذا قال هنا واحد شرفتي قرتي بينك وها هذا عايش واحد فأنا معلوم وفاعل هذا الشرع أو السنة هذا الوصول هذا مخالف هذا لا تفعله هذا لا تفعله يسوي لكم شقيق ما يقع حير به كل مسوين حيران وعنقوا ينفوا هذه حيران إن حصلت الله يقدر يدي كل هالكلام كودنا كمان شغال بله سواء كل الإنسان حنتي بدن ومكان الساعي هم كانوا فقراء قيس الله وكثير حال بكرة واجيه سيدا كثير مكان أقول النشر الحالي هاي كل هالكلام فلان قيني سلاجني إن عون مكاني وحن حصلت لي ظروف مقارنة كمان شغال بله وحن سكون بالجادة وبسي بالنسبة عمر inta aan ka soo dooranayno iyadoo aan taajinay gudoomiye cusub oo golaha deegaanka sida uu sheegayo qodobka 14aad ee xeerka gobolada iyo degmooyinka ee 23 inaan xilkiisi ku meel gaar ah ugu wareejinay gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka Muumin Gadiid Cumar. dhanka kalena waxaa shirkan ku gacan sayday gudoomiyaha gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci wuxuuna sheegay in shirkani aanu ahayn mid sharciga waafaqsan wuxuuna aad u dhaliilay xubnaha golaha deegaanka ee shirkaasi qabtay khilaaf baan markaa waqtiga sharci baan markaa go'aanka ay ka maqatay wasaaradii arrimaha guduhu oo uu maxay hayday soo bixiyay in la sugo inta ay go'aan soo saareen hadda dhowrka guud ee sheegaysa la warqad soo qoray anagu ma hayno warqad gaar ah oo ka dambeysay markaa aan wasiirka wada hadalay marka waxa weeyaan nimanka la leeyahay way fariisteen sharciga fariisteen amar diida cad oo ay ka hor yimaadeen amarkii aan ka bixiyay anigoo abara sabti gobolka madaxweynaha gobolka oo amar ka haysta wasiirkii arrimaha gudaha oo xukuumayay gobolka ayay jabiyeen waxa weeyaan waxana la marin doonaa wixii sharciga kaga aadan iyada soo kale ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee gobolka Awdal Axmed Cismaan Mire ayaa waxa uu tilmaan ka bixiyay qoraalka uu gudbiyay barasaabka gobolka Awdal iyo golaha deegaanka ee degmada Boorama ee uu kaga codsanayay inay xasaanada kaga qaadaan gudoomiyihii hore ee golaha deegaanka ee degmada Boorama Cabdiraxmaan Shida Bile sida uu sharciga u yahay waxaana hadalka ka mid ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee gobolka Awdal soo xigay laba xildhibaan iyo maxaa ku laba shaqaale oo aan maxay shaqaale dawladda hoose ahayn oo hanti dhowrka tiimka wax baarayay iyo hadii alla ku leeyahay kooxda بليس ولا سعودي
ay hor keeneen iyagoo ku sida oo leh falagaransa ayaan ku soo qabanay GR ama lacag qabasho aan tii dawladda ahayn iyo lacag ay qabanayeen maxaan ku raahdaa meelaha maaragtay haddii la ku leeyahay suuqa cashuurta lagu qabtay sida xariigta iyo soo taayada ay markaa sidataana ku xusan 380 milyan iyo 100 kun ma garanaysaa oo maxaan ku lagu lunsaday maxaan ku sida maxaan ku qoraalkan hanti dhowrka ku xusan oo sagana hadda u baahantii deeq qaadan kartaan documenti been abuura oo sida ka maxaan ku GR ki dawladda ee lacagta lagu qabanayay midowga iyo walaaq cad oo cashuuri lagu qabanayo maxaan ku dad loo qortay oo ana kuwa maxaan ku diyaal ku leeyahay arinta labadii xildhibaan ee falagaransada lagu qabtay mid gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama ee xilka xubnaha golaha deegaanka ka qaadeen ayaa xilka hayay muddo 6 sano ah lamana garan karo muranka barasaabka iyo ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee gobolka Awdal iyo shirka xubnaha golaha deegaanku halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka Haashim Sheekh Cumar Good Soomaali TV Boorama